wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo xadka ay wadaagaan dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa ku waramay in halkaas uu ka socdo dagaal qaraar ah oo u dhaxeeya ciidanka New Police oo garab ka helaya ciidamada federaalka Itoobiya iyo Al-Shabaab oo la sheegay halkaas inay fariisimo ka sameysteen. Dagaalka ayaa ah mid xoogan oo la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan. Ciidamada New Police ayaa la sheegay in ay weerar ku qaadeen fariisimo Al-Shabaab halkaas ay ku lahaayeen. Al-Shabaab ayaa la sheegay in awoodii ugu badnayd halkaas ay geeyeen isla markaasina ay isku dayayaan inay ka hortagaan weerarka kaga imaanaya ciidanka New Police oo garab ka helaya ciidamada Itoobiya. Warar la helayo waxay sheegayaan in saraakiil ka tirsan TPLF ay dagaalkaasi hogaaminayso, balse dowladda deegaanka Soomaalida wali wax faahfaahin kama aysan bixin dagaalka xoogan oo saaka halkaasi ka bilowday. Ilaa iyo maanta ayaa lagu soo waramayaa in uu soo gaaray dagaalka. Lama oga khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay oo labada dhinac soo kala gaaray. Dowladda deegaanka Soomaalida wali wax faahfaahin kama aysan bixin dagaalka. Kol hore madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida oo yimid halka ay ciidanka New Police kula dagaalamayeen Al-Shabaab ayaa sheegay in ay xadka ka soo tallaabi doonaan isla markaasina ay ka hortagi doonaan qatarta iyo dhibaatada oo deegaanka la damacsan yihiin Al-Shabaab oo uu sheegay in ay dadka iyo dalka Soomaaliyeedba ay ka soo horjeedaan ayna dhibaato ku hayaan dadka Soomaaliyeed. Madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida ayaa kol hore shacabka dowladda deegaanka ugu baaqay inay si dhow la shaqeeyaan isla markaasina si ciidanka ay kaga hortagaan Al-Shabaab weerarada ay ku soo qaadeen. Ilaa iyo xilliga lama oga khasaaraha labada dhinac soo kala gaaray. Dowladda deegaanka wax faahfaahin kama aysan bixin dagaalka saakadii hore bilowday. Dadka qaar shacabka waxay sheegayaan in ay jiraan ama la maqlayo guux diyaaradeed oo laga yaabo in dagaalka ay qayb ka yihiin. Wixii warara oo soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan. Waxaan ka codsanaynaa in aad saaxiibadiida gaarsiido sina sheer garaydo.